waxaa saagan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo laga celiyay Cabdi Cali Raag oo ah shakhsi ka agdhow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana ahaa la taliyaha dhinaca arrimaha doorashooyinka waxaana haatan uu doonayay inuu isku sharxo xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliya oo deegaan doorashadiisuna ay tahay magaalada Kismaayo. Cabdi Cali Raag ayaa maanta laga celiyay Kismaayo kadib amar ka soo baxay madaxda sare ee Jubbaland kadib markii uu diyaarad u saarnaa magaalada Muqdisho dib loogu celiyay. Cabdi Cali Raag hore noqday la taliyaha sare ee madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa uu muddooyinkii dambe uu khilaaf xoogan uu kala dhaxeeyo dhinaca siyaasadda Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kadib markii uu ka agdhawaaday filla Soomaaliya. Shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho uu ku qabtay ayuu sheegay in la soo celiyay markii ay diyaaraddu ay degi lahayd waxaana sheegay dadkii soo dhaweyntiisa isku diyaarinayay ee laga celiyay in ay galaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Axmed Madoobe ma doonayay in aan Kismaayo tago si aan ugu tartama kursiga beesha ee maqbuul sagaalkii iyo badhkii inaan u kicintamo magaalada Kismaayo si aan u sii anbaqaado ololahaygii doorasho maxaan ku dhahdaa maalmahan ama wiigagan inagu soo aadan haddii la yidhaahdo waxaan xidhiir la sameeyey odayaasha iyo dhallinyarada iyo haweenka beesha maxaan ku dhahdaa waxayna go'aansadeen inay si mug leh ay igu soo dhoweeyaan magaalada Kismaayo garoonkeeda. dabcan anigu markii aanu diyaaraddu kacday dee wax badan ma aanan ogeyn laanna waxaa weeye access uma aanan lahayn networka laakiin hadda intaanu soo noqonnay kabacdi waxaan ogaaday in dadkii loo diiday inay garoonka galaan dadkii rabay inay soo dhoweeyaan. diyaaraddu markii aanu Kismaayo ku hoobannay oo ay ku dhoweyd inay degto ayaa maxaan ku dhahdaa pilotkii waxaa soo gaadhay fariin lagu amrayo inuu dib u noqdo security arrimo amniga la xidhiidha awgood. ninkii pilotka ah wuxuu noo sheegay in fariintaasi soo gaadhay sidaa daraaddeedna uusan u badheeri karayn inuu dego sidaa isla markaana uu ku khasban yahay inuu dib ugu noqdo Muqdisho. wuxuuna yidhi dad sida wararku igu soo gaarayaan dad aan meesha laga rabin baa diyaaradda saaran. dabcan anigu markiiba messageka ugu horreeyeyba markii uu pilotku sheegay waa fahmay. dabcan dadkii maxaan ku dad badan oo daan xogaga lahayn baa diyaaradda saarnaa buuq badan yaa maaragtay meeshii ka dhacay laakiin waa u sheegay waxaan ku yidhi problem ma jiro anigoo ka duulaya fariimihii hore oo aan helay oo ahayd inuusan Axmed Madoobe doonayn inaan maxaan ku dhahaa Kismaayo imaado si aan ugu tartamo kursiga beesheena anigoo taas maartay xiganaya ama xusuustaydu dee mar aan muxuu ahaa tix raacaya ayaa waxaan ogaaday in sababta diyaaradda loo celiyay ay tahay inaan anigu saarnahay. laakiin pilotkii baan waxaan weydiiyey markuu yidhi waan noqonaynaa waxaan ku yidhi annaga jilib uma soconay Kismaayo u soconnaa. marka wuxuu igu yidhi waan ogahay inaan Kismaayo u soconno meesha messageka ama fariintaan ka helayna waa Kismaayo weeye waxaana lagu advice gareeyey ama lagula taliyay inaan dib u noqdo. xaaladda marka saa ka dhacday oo aan dadka Soomaaliyeed caalamka iyo meediyahaba u sheegayo arrintaas weeye waa arrin runtii la yaab leh waa arrin dimadaabiyo iyo dibudhac ku ah maxaan ku dhahdaa doorashada dadkuna hawadii iyo rajadii ay ka qabeen doorashada si guud gobolladoo dhan gaar ahaan hadda gobolkan Jubbaland runtii aad bay mugdi u sii galaysaa walaac badan baana dadku maxaan ku dhahdaa runtii ay ku biirin doontaa ama ay ku beeri doontaa. waxaan arrintani waa arrin hordhac u ah inaanay marnaba Jubbaland ka dhici doonin doorasho hufan oo maxaan ku dhahdaa loo dhan yahay oo qofku uu xor iyo xalaal xor u noqon karayo inuu ka bogto inuu ololeeyo maxaan ku dhahdaa oo uu doorasho galo. sidaa daraaddeed waxaan rabaa si hordhaca inaan u record gareeyo in kursiga beesha oo aan u tartamayey oo saaka ay sababtay in laga soo celiyo layna diiday inaan ololahaygii sameeyo
iyo kuwa kale ee Soomaaliyeed dabcan laga yaabo in ka badan oo kamid ah inay tagi karaan laakiin haddana markay gudaha tagaan aysan wax badan aysan awood u yeelan doonin inay galaan u yeeshaan ololahooda doorasho waxaan dadka Soomaaliyeed iyo caalamka iyo meediyahaba u sheegayaa in meeshaas isha lagu hayo waxaanan cad runtii inaanay doorasho halkaa ka dhici doonin waxaan mararka hore biciidsanaynay oo runtii adkayd inaan rumaysanno in dadku ay leeyihiin Axmed Madoobe wuxuu haystaa liiska doorashada dadka soo geli doona maxaan ku idhaahdaa 2021 Jubbaland runtii kuraasta waxaa iskale qabaa'ilo beelaa iskale dabcan qof walba wuxuu filayaa inay beeluhu awood u yeelan doonaan inay doortaan dadka ay maxaan ku idhahdaa iyagu ay jecel yihiin marka conclusionkaygu waxa waaye oo aan runtii ku soo gabagabaynayaa dhibaatadaasaa ka dhacday dabcan anigay si khaasa iigu dhacday laakiin waa mid runtii saameyn ku yeelanaysa ama ku wada dhacday dadka Soomaaliyeed ee samaha jecel dadka Soomaaliyeed ee doonaya inay kuraastooda si guud ugu tartamaan iyo si gaar ah Jubbaland caalamka oo runtii maxaan ku idhahdaa iyo maxaan ku idhahdaa dadka samay jeclayaasha ah oo runtii juhdi badan geliyey sidii doorasho xalaal ah ay uga dhici lahayd maxaan ku idhahdaa gobolkaas intaasaan rabaa inaan idinla wadaago waxaanan jeclahay in tallaabooyinka xiga oo aan ku xaqiijinayo inaan si maxaan ku idhahdaa xor ah aan ugu tartamo kursigaas inaan ka sii shaqayn doono waanad mahadsantihiin waa gartay maxay tahay sababta keeni karta in adiga si gaar ah lagu beegsado oo laga soo celiyo garoonka oo aan ka digin waxa aan filayaa wax hadda gooni aan ogahay ma jiraan laakiin inta aan ogahay waxa weeye inaan aniga Axmed ku kala duwanahay ra'yiga xagga siyaasadda marka dabcan waxaan u aanaynayaa oo kaliya inaan ku kala duwanahay ra'yiga siyaasadeed inaan ku kala duwanahay kaliya aan filayaa inay tahay sababtu marka halka muxuu noqon karaa heshiisa la gaaray siyaasadii waa lagu heshiiyey wasaarihii iyo hogaaminaha shalay ay gaareen maantana waa si shakhsi ah lagaga soo celiyey marka halka muxuu noqon karaa walaa halku wax hadda aniga si gooniya iigu yaala maartay ma aha waa xal Soomaali oo dhan u yaala waa xal u yaala saxiixayaashii heshiiskan doorasho iyo habraacyadiisii waa heshiis ay isha ku hayaan caalamku waa heshiis dadka Soomaaliyeed si guud iyo kuwa hamigu ka haya kuraastaba u yaala xalkeeda leanna waxa weeye haddii tan indhaha laga qabsado waxaa dhici doonta in ay qof waliba u badheedho oo dee dabcan yaqiinsado inuu wuxuu doono samayn karo marka haddaan tan waxba laga qaban waxaan aad uga baqayaa inay talo faraha ka baxdo oo ay tani horseedo doorasho maxaan ku idhaahdaa aan sax ahayn iyo outcome ama natiijo aan saxayn inay ka soo baxdo waa gartay maanta Kismaayo laga soo celiyey tegaysa marka la Kismaayo oo ugu tartamaysa dabcan horta waxaan rabaa inaan kuu sheego anigu reerkayga iyo carruurtayda ayaa degan magaalada Kismaayo September 2019kii ayaa iigu dambeysay intaasna runtii maxaan ku idhahdaa waxaan ka baaqsanayay inaan tago anigoo mar walba helayay fariin ah ma tegi kartid laakiin mar walba waxaan anigu filayay in warka la ii sheegayo uusan sax yihiin maadaama Soomaalidu ay iska hadal badan tahay laakiin saakan yaqiinsaday kama daali doono kama rajo dhigi doono haddii la yiraahdo inaan reerkaygii iyo ciyaalkaygii aan u tago kama rajo dhigi doono inaan u tartamo kursiga maxaan ku idhahdaa jifadayda haddii waana wadi doona dadaalka magaalada Kismaayo waxaa ku sugan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble si loo dardargeliyo arrimaha doorashooyinka iyo waliba xalka ee ka gaadhista khilaafka muddada dheer taagnaa ee gobolka Gedo.